Subscribe saar halkan si aad u hesho muuqaal walba oo aan halkan soo gelino. Mahadsanid. waan salaam asxaabay magacaygu waa Zeynab waxaan ahay 17 jir waxaan la noolahay aabahay iyo hooyaday milihii gabdho ila dhashay laakiin waxaan leeyahay saaxiibo badan farxiyo waa saaxiibteeda ugu dhow nolosheedu si fiican bay u socotay ilaa maalin maalmaha ka mid ah anigoo fadhiya qolkayga oo is dhageysanaya sidii caadada ii ahayd ayaa waxaan bilaabay inaan sawir qurux badan sameeyo kadibna hurdo ayaan dareemay waxaan go'aansaday inaan wax yar seexdo heestii waan iska damiyay kadibna waan seexday balse waxa si lama filaan ah u dareemay culays saaran jirkeyga ma aanan dhaqaaqi karin waxaana dareemay inaan naafo noqday waxaan isku dayay inaan dhehayga furo laakiin awood uma yeelan neeftayduna waxay noqotay gaabis waxaan isku dayay inaan qayliyo waxaana dareemay inaan dhimanayo isku dayo badan ka bacdi waxaan awooday inaan indhahayga furo laakiin waxaan arkay hoos qofeed waxaan isku dayay inaan si xoog leh u qayliyo dadaal badan kadib waan ku guuleystay hooyaday ayaana si degdeg ah iigu timaaday Zeynab maxaa kugu dhacay oo aad la qaylinaysaa hooyo waxaan arkay hoos qofeed qolka dhexdiisa dhex taagan sidoo kale waxaan dareemay culays iga saaran jirka mana dhaqaaqi karin gabadhaydii waxaad ku riyotay riyo xun mayo hooyo u malayn maayo inay tahay riyo ee waa dhab kadibna hooyaday waxay i siisay hab waxayna igu tiraahday istaji gabadhaydii waxbana ha ka fikirin iska seexo kadibna hooyaday waxay igu akhrisay ayado quraan ah jirkayguna wuxuu bilaabay inuu dego mar kale ayaana seexday mar kalena iguma soo dhicin wixii igu dhacay subaxdii markii aan toosay waxaan dareemayay cabsi waxaan anigu rumaysnaa in wixii xalay igu dhacay aysan ahayn riyo sababtoo hadday riyo ahayd maxaa iga dhigay qof dareemaya culayska intaas la-eg waa wax aan caadi ahayn kadibna qolkayga ayaan ka baxay waxaana arkay hooyaday oo dhoola cadeynaysa waxaan isku dayay inaan dhoola cadeeyo laakiin waan ku guuldaraystay oo waan awoodi waayay inaan dhoola cadeeyo gabadhaydii weli ma waxaad ka fikiraysaa riyadii xalay hooyo ma ahayn riyo hooyo way yaabtay mana aysan hadlin kadibna waxaan anigii hooyo soo aadnay dhankii miiska cuntada aniguna cuntada ma aanan awoodin inaan cuno qolkayga ayaana ku laabtay waxaana fariin u diray saaxiibteeda farxiyo si ay iigu timaado dhowr daqiiqo kadib farxiyo ayaa ii timaaday farxiyo ayaa tidhi wejigaaga maanta ilama fiicna walwal ayaana ka muuqda maxaa kugu dhacay kadibna waxaan u sheegay wixii ku dhacay oo dhan markii aan hadalka dhameeyey saaxiibtay waxay u qosashay si xad dhaaf ah aniguna waan ka naxay markay qosashay tani ma aha wax lagu qoslo waa riyo xun oo keliya saaxiibteedii laakiin adigu sidaas oo dhan maxaad uga cabsanaysaa aniguna waxaan ogaaday in uusan qofna rumaysanaynin hadalkayga waxaana idhi ayaa cabsida waan iska saaray farxiyo waxay bedeshay hadalkii waxayna tidhi maanta waxaa jirtaa xafladda dhalashada hani ma imaanaysaa ma hubo inaan imaan doono laakiin waan isku dayayaa inaan imaado haye waan tegayaa waan kula soo xiriiri doonaa egow haye farxiyo way baxday anigana waxaan bilaabay inaan ka fikiro wixii dhacay aniguna waxaan isku qanciyey wixii dhacay inay ahayd riyo xun oo aan ku riyooday mar kalena aanan dhici doonin waxaan go'aansaday inaan hees dhageysto oo aan bilaabo inaan wax sawiro sababtoo ah aad ayaan u jeclaa inaan wax sawiro markii aan dhameeyey maanan aqoon wax kale oo aan sameeyo aad ayaan u cajisnaa waxaana fariin u diray saaxiibteeda farxiyo waxaana idhi waan imaanayaa xafladda waxay igu jawaabtay xafladdu waxay bilaaban doontaa saacad kadib ay soo dheeray saaxiib kadibna waxaan go'aansaday inaan is diyaariyo oo aan labisto waxaana xirtay dhar madow oo aad u gaaban aniguna ma aanan xijaaban aabahayna wuxuu had iyo jeer igu oran jiray xijaab gasho gabadhaydii laakiin anigu hadalkiisa waa diidi jiray aniguna had iyo jeer waan jeclaa inaan xirto dharka gaagaaban kadibna waxaan dhameeyey labiskii waxaana marsaday waxyaabaha la isku qurxiyo qolkayga ayaana ka baxay waxaana arkay wejiga aabahay oo caro ka muuqato waxaad xiratay gabadhaydii tag qolkaaga oo iska bedel dharka aad xiran tahay xirana dhar cawradaada asturaya haddii kalena guriga kama bixaysid waan kuu sheegay haddaba aabe waxaan u socdaa dhalashada saaxiibaday dharka aan qabana wuu fiican yahay hadalkay ma maqlaysid waxaan ku idhi bedel dharka aad qabto haddii aad bedelinna wax bixid la dhaho ma jirto waxaan galay qolkayga waxaana si xoog leh u xiray albaabka qolkayga kadibna waxaan maqlay hooyada iyo aabahay oo isla buuq sababtoo aabahay uu igu qayliyey maxaa yeelay gabdhaha da'dayda ah waxay u labistaan sidan oo kale daqiiqada kadib hooyada ayaa qolkayga timid waxayna fadhiisatay hortayda waxayna tiri gabadhaydii Zeynabey dharka aad qabto cawradaada ma asturi karo maxaa yeelay wuu gaaban yahay hooyo saaxiibaday sidaas bay u labistaan markay xafladaha aadayaan waana fashion kor hooyaday way aamustay waan ogahay waxaa la murantay aabaha sababtoo ah uu kugu qeyliyay haddana isagu wuu baxay waana bixi kartaa laakiin ha soo daahin ma rabo hooyo inaan baxo gabadhaydii Zeynabey fursaddan iska khasaarin marka aad timaadana aabaha raalid haye hooyo kadibna waxaan ka baxay guriga waxaana la kulmay saaxiibtay farxiyo waxaana xaflad u raacnay gaari markii xafladda meesha ay ka dhacaysay imaanayna
waxaan arkay xalfadda oo si fiican loo diyaariyey. Xafladii markii ay dhammaatay, waxaan kusoo laabtay guriga. Waxaana arkay hooyaday iyo aabbahay oo fadhiya qolka fadhiga oo daawanaya TV-ga. Hooyaday ayaa ii eegaysay si ay ii xasuusiso inaan raali geliyo aabbahay. Waxaana fadhiistay agtiisa waxaana idhi, waan ka xumahay aabe wixii aan kugu idhi, laakiin aabe waa fashion, saaxiibadeena sidaas bay u labistaan. Aabbahay wuxuu si degan ii yidhi, fashion baa inaad jirkaaga muujiso, waa inaad xijaabataa. Diinteenu waxay nagu amartay inaan xijaabano. Waan kuu sheegay marar badan, laakiin adigu waa diiday. Kadibna aabbahay ayaa hadalkii dhameeyey, wuuna tegay wuxuuna galay qolkiisa. Gabadheedii hadda waxaa laga yaabay inuu xanaaqsan yahay. Beri si fiican oo wanaagsan oo akhlaaq iyo xushmad ku jirto ula hadal. Kadibna anigu madaxa ayaan ruxay, waana qaatay hadalka hooyaday. Habeenkii markii la gaaray waxaan go'aansaday inaan seexdo. Kadibna waan seexday, balse waxa si lama filaan ah u dareemay culays saaran jirkeyga. Ma aanan dhaqaaqi karin, waxaana dareemay inaan naafo noqday. Waxaan isku dayay inaan indhahayga furo, laakiin awood uma yeelan. Neeftayduna waxay noqotay gaabis. Waxaan isku dayay inaan qayliyo, waxaana dareemay inaan dhimanayo. Isku dayo badan ka bacdi, waxaan awooday inaan indhahayga furo, laakiin waxaan arkay hoos qofeed. Waxaan isku dayay inaan si xoog leh u qayliyo. Dadaal badan kadib, waan ku guuleystay. Hooyaday ayaana si degdeg ah iigu timaaday. Zainab, maxaa kugu dhacay oo aad la qaylinaysaa? Hooyo, waxaan arkay hoos qofeed qolka dhexdiisa dhex taagan. Sidoo kale waxaan dareemay culays iga saaran jirka, mana dhaqaaqi karin. Gabadheedii waxaad ku riyotay riyo xun. Kadib hooyaday waxay igu akhrisay aayado quraan ah. Jirkayguna wuxuu bilaabay inuu dego. Mar kale ayaana seexday. Mar kalena iguma soo dhicin wixii igu dhacay. Subaxdii markii aan toosay, waxaan dareemayay cabsi. Kadibna waxaan soo aaday miiska cuntada. Waxaan arkay hooyaday iyo aabbahay oo fadhiya miiska cuntada. Gabadheedii ma fiican tahay? Kadibna madaxa ayaan ruxay anigoo muujinaya inaan fiicanahay. Hooyaday ayaana waxay bilowday inay aabba u sheegto wixii dhacay. Aabbahay wuxuu yiraahday, Zainab, quraacda kadib waxaan rabaa inaan kugula kulmo barxadda. Haye aabe. Aabbahay wuu baxay, aniguna waxaan isku dayay inaan wax cuno, laakiin ma aanan awoodin inaan wax cuno. Waxaan aaday barxadda, waxaana helay aabbahay oo fadhiya barxadda. Aniguna hortiisa ayaan fadhiistay. Aabbahay ayaana wuxuu bilaabay hadalkiisa isagoo yidhi, gabadheedii Ilaahay wuxuu dumarka ku amray inay xijaabka xirtaan oo ay xirtaan xijaab qarinaya cawradooda, sidoo kalena aan ahayn mid khafiif ah. Adiguna waxaad xiratay wax aan xijaab u dhoweyn, cawradaaduna way muuqanaysay. Gabadheedii, saaxiibada aniga waxba igama gelin, aniga waxay iga galeen adiga oo aan ku ahay waalid. Gabadheedii wuxuu Alle yidhi suuratul Axsaab, Bismillaahi Raxmaani Raxiim. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. sidoo kale suuratu Nuur, Alle wuxuu yiraahday, بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. صدق الله العظيم. aayado badan ayaana jira gabadheedii, waxaana la faray in aysan muujin jirka, beddelkeedana ay xijaabka xirtaan. Maxaa yeelay gabadheedii ma jirto gabar ka qurux badan gabadha xirata xijaabka. Waxaan ahay aabaha, waxaana ka baqayaa in carada Ilaahay kugu dhacdo. Dharkan aad xiratayna wax faa'iido ah ma lahan, oo aan ka ahayn inuu dambi ku siyaadiyo mooye iyo in Ilaahay ka caroodo mooye. Marar badan ayaana anigu ku nasteexan jiray, waana i maqli weyday. Fashionkii saaxiibada ayaana iga raacday. Kelmadii Ilaahayna waad iska dhetirtay. Waxaan jeclaan lahaa inaad iga dhaxsho wanaag oo aad hadalkayga yeesho. Kadibna aabbahay wuu istaagay, aniguna si degdeg ah ayaan u galay qolkayga anigoo qaatay taleefankayga. Waxaana Google-ka ku qoray calaamada lagu garto ruuxaanta. Waana helay, balse ma helin daawada, laakiin waxaan ogaaday in quraanku daawo u yahay. Maxaa yeelay markasta oo aan arko ruuxaanta, hooyaday way ii timaadaa, waxayna igu akhridaa quraan. Kadibna anigu si degan ayaan u seexdaa. Intii aan fikriyay waxaan maqlay aadaanka salaada duhur. Waan dhoola cadeeyay, kadibna waan istaagay, waana weysaystay. Halkaas ayayna noloshaydu isku beddeshay. Haddana ma dayaco salaadaha. Waxaana sidoo kale bilaabay inaan barto quraanka. Waxaan xirtay xijaab asturaya cawradeeda. Tani maalintaasna ruuxaan wax la yiraahdo maanan arkin. Waxaana ogaaday in nolosha dhabta ay tahay inaad Eebbe u dhawaato. Seexo adigoo raalli ka yahay Ilaahay, ogoowna wax walba way hagaagi doonaan. Waana dareen qaali ah marka uu Ilaahay raalli ka yahay. Asxaabteydana, adinkana waxaan idinkula dardaarmayaa inaad salaada ilaalisaan, sidoo kalena quraanka aad si fiican u barataan.